هذا loo soo agaasimay isla markaana lagu taageerayo gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Xasan Maxamed Xuseen Muungaab oo lagu qabtay degmada Hodan ayaa waxa ka qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo xubno ka kala socday maamulka gobolka Banaadir iyo waxgarad Soomaaliyeed Imaam Cumar Macalin Abshir oo ka hadlay munaasabada ayaa maamulka degmada Hodan uga mahad celiyay sida ay u soo agaasimeen xafladan waxa uu gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir kula dardaarmay in uu xaliyo ammaanka magaalada caasimadda ee Muqdisho isagoo u mahad celiyay gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir amal dhibaato ayuu martuu yahay dhowr iyo 20 sano oo qarankii Soomaaliyeed dhibaatada ku dhacda aan markaati ka wadanahay ayaa maaragtay maanta adiga lagaaga dhigay gudoomiye ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay kugu ceebeeyo waxaan ku dardaarmaynaa cadaalad iyo midnimo iyo qaranka Soomaaliyeed inaad si caama ah maaragtay u shaqaysid mas'uuliyadda lagu dhiibana ilaahay waa kugu xisaabtamayaa shacabka Soomaaliyeed waa kugu xisaabtamayaa meesha aad joogtaayna waa muraayadii ummadda Soomaaliyeed waa caasimadii ummadda Soomaaliyeed waa Muqdisho ayadaa gudoomiye lagaaga dhigay ku soo dhawaaw waa kugu soo dhawaynaynaa ilaahayna waxaan kaaga baryaynaa khayr iyo barwaaqo iyo baraare iyo gudoomiyaha degmada Hodan ee gobolka Banaadir Cabdi Maxamuud Dhabaney oo munaasabada hadal ka jeediyay ayaa sheegay in ka maamul ahaan ay soo dhaweynayaan gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir isla markaana ay la shaqeey doonaan gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir sida uu tilmaamay حالك أودية هاي أنت عشوا هوتيل أنت عشوا تغادير أنت هو هاي هاي أفضل ما تفعل وعلى يعني مركا المرة أول بعد شهر المرة بدي أنا بساعة عليه أما بدي ساعة عليه afayeenka maamulka gobolka Banaadir Maxamed Yuusuf oo gabagabadii munaasabada hadal ka jeediyay ayaa sheegay maamulada degmooyinka gobolka Banaadir looga baahan yahay inay garab istaagaan maamulka cusub ee gobolka Banaadir isla markaana ay si aad ah ula shaqeeyaan gudoomiyaha cusub sida uu sheegay وقاضينا هدي الله يسمو وحنا بلن قاضينا قدوميها عصوب إمام الحكومة الفنان